kulan ballaaran oo wada tashi ah oo ay yeesheen xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo qurba joogta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waqooyiga Ameerika ayaa ka qabsoomay magaalada Minnesota ee wadanka Mareykanka. kulan weynaha xukuumadda iyo qurba joogta waqooyiga Ameerika ayaa waxa ka soo qayb galay wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso wasiirka xafiiska horumarinta xoolaha iyo reer guuraaga Marwo Maajida Maxamed Maxamuud ayna ku wehelinayeen wasiirka xafiiska madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdimahad Maxamed Cabaas wasiirka xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Khadar Cabdi Ismaaciil wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Ibrahim Aadan Mahad maarayaha macadka cilmi baarista dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Guuleed Aw Cali Kaahin iyo qaybaha kala duwan ee qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waqooyiga Ameerika gaar ahaan hogaaminta qurba joogta waqooyiga Ameerika dhalinyarada odayaasha hooyooyinka iyo bahda fanka iyo halaburka haddaba kulankan ballaaran ee xukuumadda iyo qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa si weyn loogaga wada tashanayay isla markaana si qoto dheer loo falanqeynayay sidii loo sii xoojin lahaa geediga horumarka nabadgelyada nidaamka maamulka suuban ee ku salaysan dib u curashada ee dhidibada u aastay horumarka iyo nabadgelyada uu deegaanku maanta ku naaloonayo waxaana wada tashigan aan ka maqnayn oo qodob muhiim ah ka ahaa shirweynahan sidii ay qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ka soo jeeda ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen horumarka laxaadka leh ee ka socda deegaanka isla markaana u soo maalgashan lahaayeen dhulkooda hooyo kulan weynahan oo ay ugu horeyn ka hadleen mas'uuliyiintii ka socotay deegaanka ayaa waxay ugu horeyn ku soo bandhigeen guulihii iyo waxqabadyadii ay xukuumadda deegaanku soo hoysay sanadihii u dambeeyay ee gaar ahaan horumarka iyo nabadgelyada khaasatan dhinacyada biyaha beeraha caafimaadka waxbarashada jidadka iyo dhammaan kaabayaasha horumarineed iyo sidoo kale ballaadhinta qaab dhismeedka dawliga ah iyo yagleelida microfinansiga shaqa abuurna loo sameeyay 100,000 kun oo dhalinyaro ah iyo weliba guulaha ay xukuumaddu ka soo hoysay dhanka xidhiidhka dadweynaha ee dal iyo dibadba dhankooda qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waqooyiga Ameerika ee ka soo qayb galay shirkan ayaa si weyn uga marxaati kacay dhammaan waxqabadyada horumarineed nabadgelyo iyo maamul suuban ee uu deegaanku ku talaabsaday 8 sano ee ugu dambeysay maadaama ay intooda badan indhahooda ku soo arkeen waxaana kulan weynahan wada tashiga xukuumadda iyo qurba joogta ka soo jeeda deegaanka ee ku nool waqooyiga Ameerika call conference kaga qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ugu dambeyn kulan weynahan ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan iyo niyad ka midaysan sidii wadajir ay xukuumadda iyo shacabkeeduba hore ugu socon lahaayeen una tirtiri lahaayeen saboolnimada oo ay bulshaweynta deegaanka u gaadhsiin lahaayeen horumar iyo nabadgelyo aan dib u noqosho lahayn isla markaana ay u buuxin lahaayeen kaalinta deegaanka kaga aadan yoolasha uu dalkeena Itoobiya ku rabo inuu kaga mid noqdo wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay